kiiskan markuu dhacay waan soo gaaray kalkacyaan soo gaaray kiiskii markaas gabadhiina la aasayna waa soo gaaray dadkii Soomaaliyeed oo kiiskaas ka xumaadayna waa mahad celinayaa ayaguna waa mahadsan yihiin xukun baan sugaynay xukunkiina maanta aad u dhacay xukunkii waa dhacay waan ku faraxsanahay xukunkaas inuu dhaco racfaan bayna qaadanayaan xaq bay u leeyihiin annaguna waa sugaynaa racfaankooda weligeed cadaalad baan weligii sugayay wixii qoranna waa la gaarahayay waana gaarnay hadda jiraan maadaama gabadha meesha lagu kufsaday ay diris lahaayeen dadkana ay taqaanay inay wada noolaadaan way ka fogaatay waxayna u guurtay wardheer bay aadeen gabdho badan bay wadataa saas u baaqdi ku soo noqon doonaan gabdhahan markay iskuulka aadaan ama markay adeeg loo diro marka baqdin baa u geysay wax kale uma geyn waan soo laaban doonaa insha Allah taala anigu dareenkaygu waxaan soo hayay dadkaas in xaq laga wafiyo ay subiyaan galmada subiyaan kufsi subiyaan ay dileen kufsadeen waa filayay mataqaanaa inay dawladdu shaqo ka qabanayso dadkaas kiiskaasna si fiican ku dhamaanayaan weligii filayay weliga kama xumayn filayay waa gartay marka saddex nin baa lagu xukumay Soomaa waxaa la xukumay saddex nin laba walaalo iyo mid diris lahaa adiga saddexdaas tuhun kaaga jireen way iga jireen weligood buu iga jireen way guriga waa arkay widiisana waa la soo masawiray tuhun igama jirin mar inay dambiga galeen way ku caddayd DNA-guna waa sii caddeeyey waa gartay marka arrintii maanta waa soo gabagabowday adiga codsaday miyaa dawladda oo kale inay ku qisaasto dawladda anu kama codsan inay qisaasto dawladda arrintan iyada ku jirtay iyadaana waday iyadaana sanadiifinaysay dawladda laftigeedu inay ku baabi'iso dambiilayaasha noocaas oo falkaas hadda aad ugu batay waddanka in lagu baabi'iyo raggaas oo aan dib loogu noqon may marna ma filayn ilaa madaxweynahan tagnay wasiirka cadaaladdan u tagnay kiiska iyagoo dhan waan kala hadalnay kiiskanu kiis aad weyn buu ahaa gabar yaroo saqiira 12 jira oo ardayada ayay kufsadeen weligay waxaan filayay dawladda inay kiiskaa filin doonto baan filayay waxaan ku mahadsan yihiin dawladda ma u sheegtay maanta haddii xukun uu dhacay gabadha hooyadeeda kale weli lama hadlin hadda xukun soo dhacay waa dhacay xukunka laakiin weli lama hadlin mobilka waa iga maqnaanaya haye shalay iyo ma la hadasho xaalad meesha maraysa ma la socodsiisay waxaan la socodsiiyey wiil aan dhalay baa ila soo hadlay waa la socodsiiyey xaaladdu meesha marayso in la balansan yahay shalay oo kale qoyskao dhan ma ku qanacsan yihiin in la qisaaso waa ku qanacsan yihiin ay carruurtoodii baa laga laayay waa lagu qanacsan yahay waa lagu qarsanaa waay dembi baa laga galay dembigiina waa laga jaasiinayaa qadar rabbi bay ahayd qadartii baa haddana dhacday intii aad hawshan aad ku jirtay wax caqabada aad la kulantay ama hanjabaad ha ahaato ama waxyaabo kale ha ahaato wax caqabada aan la kulmay ma jiro cidaan ka baqahayeyna ma jiro cidaan mataqaana dareemahayeyna ma jirin waa isku kalsoona gabagabadii dadweyne Soomaaliyeed oo kala duwan baa arrintaada aad uga xumaaday meelo kala duwan oo adduunka ka soo hadlayay marka dadkaas oo kale waxa u soo jeedin lahayd oo fariin u diris dadkii dibadda ka soo hadlayay iyo dadkii mataqaana taageeradan siinayay gidigood oo mahadnaqaya taageeradoodii iyo dadka gudahaba oo mahadnaqaya taageerada ay siiyeen ayaguna waa mudan yihiin aad baad mahadsantahay